madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyay wada shaqayntii arrimaha doorashooyinka ee uu maamulkiisa la lahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. qoraal ka soo baxay xafiiska Laftagareen xalay saqdii dhexe ayaa lagu yiri dawladda koonfur galbeed waxay cadeynaysaa in go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaruhu yahay mid sharci darro ah oo baalmarsan go'aamadii lagu heshiiyay ee wadar ogolka ahaa ee lagu dejiyay madasha wada tashiga qaran. dawladda koonfur galbeed marnaba ma aqbali doonto damaca shakhsiga ah ee ra'iisul wasaare Rooble oo muddooyinkii ugu dambeeyay xadgudub joogto ah ku hayay madax banaanida gudiyada doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalka ayaa lagu sheegay in koonfur galbeed si dhow ula socotay in ra'iisul wasaaruhu uu si sharci darro ah oo dana siyaasadeed ay ku jiraan uu hor istaagay kuraas habraac saxan lagu doortay uuna ka dhaga adeegay inuu joojiyo faragelinta qaawan ee doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliya. dawladda koonfur galbeed waxa ay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka la wadaagaysaa in laga bilaabo xilliga warqadan ay soo baxday ee joojisay wada shaqayntii kala dhaxaysay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee arrimaha taabagelinta doorashooyinka una lumiyay kalsoonidii hogaaminta doorashada dalka oo haatan uu u baahan yahay in laga samata bixiyo ayuu yiri Laftagareen ayaa sheegay in uu cod dheer ku sheegayo in caqabad kasta oo ka hor timaada doorashada uu mas'uul ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. dad badan ayaa isweydiinaya wada shaqaynta dawladda Cabdicasiis Laftagareen oo uu joojiyay xilligan ay dhamaatay doorashadii ka socotay maamulkiisa ayna hadda harsan tahay kaliya shahaada siinta xildhibaanada laga soo doortay koonfur galbeed Soomaaliya. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.